wadooyinku waxay qayb weyn ka qaataan kobaca dhaqaalaha dar walbaaba uu leeyahay iyo sidoo kale isku socodka bulshada qaybaheega kala duwan. jidkani waa dhismaha isku xidha magaalooyinka Baki iyo Boorama oo si rasmi ah hadda gacanta looga qaaday dhamaystirkiisa, taasi oo baahi weyn u qabeen dhamaystirka jidkani bulshada degan magaalooyinka Baki iyo Boorama, maadaama wadadii ay hore u isticmaali jireen bulshada ku dhaqan ee labadaasi magaalo ay ahayd mid rafac isla markaasina wada dhagaxa, sidoo kalena masaafo dheer ay u kala socon jireen magaalooyinka Baki iyo Boorama marka ay u kala socdaalayaan, maadaama ay ahayd dhul buurale ah oo isla markaasina bilaa wada ah. haddaba xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanka ku haysa isla markaasina karowsan dhismayaasha wadooyinka iyo sidoo kale sida ay baahi ugu qabaan bulshada ku dhaqan magaalooyinkaasi ayaa waxa ay dhismaha wadadaasi ay xukuumadda Soomaaliland ay maalgelin uga heshay Bankiga Horumarinta Afrika, isagoo maalgelinta soo mariyay urur goboleedka IGAD, taasi ay hirgelinayso hay'adda Save the Children. dhismaha wadadaasi fulinteedana ay fulisay shirkadda dhismaha ee Labagole Construction Company, waxaana ay shirkadda Labagole ee gacanta ku haysay dhismaha wadada isku xidha magaalooyinka Baki iyo Boorama ay dadaal dheer iyo juhdi badan ay gelisay sidii ay wadadaasi u dhamaystirmi lahayd. walaalo de adiga arkayo imka alxamdulillah baan ku jirnaa Baki daqiiqad baan ku tagnay markii horena rafay may faantay markii hore waan ku kaliya beenay alxamdulillah maad ku jirnaaniyo alxamdulillah qayna wadadan markii hore iyo imka de wax isu dhowba maaha, waxaad moodaa horta marka u horeysa in aniga la sameeyay batan mushkiladda imka moobilkayga ah waxaan kaga imi halkan sidaan gaariga ula rafanayay afar taayir bay iga qarxisay, waxa la rafta moobilka kaga tago marka aan istaagay waa markii hore wadadu aan sidan ahayn.